waa kaarinki Ronaldo waa shaquleyay isagu wax weeyaan waa Ronaldo ma ka shaqi kartid xitaa hadii daad ay korodho wax weeyaan Ronaldo waa ka wuxuu midaas ku muujinay inuu daadiisa haday korodho xitaa wali aan Istanbul yahay lama joojiyahay wuxuu ku muujiyay mataqaana horyaalka wadanka Sacuudiga sidoo kale xulka wadankiisa ku muujiyay hada xulka wadankiisa saddex gool inuu si maraya labadii ciyaarood Cristiano Ronaldo xal wuxuu dhaliyay goolkiisii 122 ee wadanka Portugal hatta marka soo daro ciyaartoyda saddexaad iyo kan afraad ee ugu goolasha badan iyo kan labaad ee ugu goolasha badan Portugal soo dira xataa 100 la imaanay isoo kaliis 100 la haysto yani ciyaartoyda isaga ka hooseeya wadanka Portugal maadaama isagu yahay kan ugu goolasha badan Portugal iyo kan ugu goolasha badan all time xulka dhan Portugal marka la eego ciyaartoyga labaad iyo saddexaad iyo afraad ku jira hadii soo dira xataa goolasha ay u dhaliyeen Portugal 100 la imaanay kaliis 100 la haystaayo وانا ما له جاري ميسي جول في 19 حلكيسه لكن رونالدو في جاري جول في 120 الى بعد marka wada wax weeyaan waa cajiib 12 gool buu ka dhaliyay 12 ciyaaro Luxembourg horimaaday wadankan aad buu u helay Ronaldo waliba xalay waxa la arkayay hal gool ayuu ku sameeyay laba dabaaldeg runtii isla hal waqti waxay taageerayaashu qaar leeyihiin labadii dabaaldeg buu hal dabaaldeg ka dhigaya imika mid waxa jirtay zoo ahayd oo gacmaha la siilay mid gacmaha xabadka la saarnaa jirta waa labada dabaaldeg weeyaan marka wuxuu rabaa inuu labada dabaaldeg hal mid ka dhigo alaabti zoo wallahi kadibna gacanta lagu soo xiraa macna marka waa kaayo odaga xal shaquleeyay taliya uu ciyaartu soo galay daqiiqada shanaad ciyaarta ayaa xalay qaatay rashan daqiiqo ciyaartu soo galay gool iyo caawi gool shanaad Portugal buu caawiyay 8 daqiiqo wax weeyaan rigoora uu lumiyay 8 daqiiqana waxa uu dhaliyay goolka lixaad Portugal marka xalay jawaan gool bay ku badiyeen runtii tababaraha Usmaan ka doonaysana waligii wax ku soo qabsay jiilkii daadiga ah Belgium hadana si wadankan ugu la shaqeysto waan arki doonaa